maamulka degmada Celifin ee gobolka Sanaag uu ka duulaya mas'uuliyadda ka saaran bulshadooda ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay dhul ay ugu deeqeen hooyo masaakiin oo ku nool degmada Celifin ee gobolka Sanaag haysatana caruur agoon ah. Hooyadan oo markii hore ugu adeegi jirtay agoonta kaaryoona ee biyaha kaga soo dhaamin jirtay ceelka Celifin balse hadda gabtay. Dhulkan ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay hablo muxsiniin oo u ololeeya dadka jilicsan oo ay soo wakiilatay waxayna bulshada Celifin qolqoljoog iyo qulbajoog ugu baaqeen inay ka qayb qaataan dhismaha gurigan loo dhisayo hooyadan iyo caruurteeda. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Celifin wareejiyeen dhulkan iyagoo bulshada ka codsaday inay ka qayb qaataan tabarucaadkan. halkan isugu nimi inaanu nusbaloodkii ugu horreeyay dan guud aanu qabanno aanu dadka muwaadiniinta ah ee degmada Celifin ka jarnay inaanu ugu deeqnay gabadha la yiraahdo Raxmo Cabdi Cismaan sida laga soo sheekeeyay ah gabadh aad iyo aad u danyara oo degmada ku nool dad badan ay ka warhayeen oo wax la tari jiray annaguna meeshii gurigii ay ku jirtay waa laga saaray baa leeyahay waxaanu halkan u taaganahay inaanu hablaha oo wakiilka iyadu way maqan tahay waxa ku maqan tahay Argaabo inaan baa ka xanuunsaday inaanu ku hablaha guddoonsiino nusbaloodka annagoo goli deegaanka ah oo qaybtii dhulka iyo qaybtii arrimaha bulshada bay isugu jirnaa inaanu ku wareejino nusbaloodka waxaanu hawada u marinaynaa walaalaha muslimiinta ah inay u soo dhisaan kulliba annagu waxaanu ku hadalhaynaa inaanu suuligeena ugu darno qodaalkiisa waxaanu muslimiinta ka codsanaynaa inay dhismaha gabadha miskiimada in loo dhiso nusbaloodka oo loo dhammaystiro waayo waxa la isku eegayo in la iscaawiyana waa minadiin weeye waxaanu hadda meesha u taaganahay waa islaanta la leeyahay agoon bay haysataa danyarta reer Celifin oo dhan waa wada garanaysaan biyaha soo dhaamisay loo keeriyoon bay laba shirkaan ku soo dhaansataa si ay dadkeeda wax uga tarto marka hore wax reer Celifin la qayliyo waxaan leenahay dadka wax haystay reer Celifin oo dhisa oo insha Allah waa wax yare qolka ama labada qol looga dhisay wax yar hablaha sida noo sheegeen codsi bay noo keeneen bir dhaweyd annagoo aan markaa cusub aan dan guud bahayn dantii guud aanu helay ama Cabdi Cismaan ayaanu ku wareejeen hadda leeyina baa ka xanuunsanaya ilaashka Argaabo kula maqan tahay annagu waxaan leenahay wixii aanu dadka ka qaadnona waanu cadeyn doonaa meelaha ku bixinay sidaana maayirkii iyo fulintii iyo waa nagu soo idmadeen marka insha Allah waxaan leenahay ha loo dhiso miskiinada nin walba kulli waxaynu ka dhulka waa ka taginaa meel yar oo baynu gelinaa ciriiriya islaantaan anoo halkaas ku wareejinaynaa maanta wixii laga bilaabano iyada ale sida uu sheegay xildhibaankii horeeyna waxaanu ka qayb qaadan karno haday suulitii waxaanu ka qayb qaadan karno waanu ka qayb qaadan doonaa guddoonsiinana haddaan nahay dawladda hoose nusbalood aanu ku wareejinayno islaan masaakiina oo ku biyoolan jirtay kaaryoon waxay ku jirtay gurigii waa laga saaray sidaa darteed waxaanu garannay inaan maanta ku wareejino nusbaloodkan walaalaha muxsiniinta iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta waxaanu leenahay waa in wax la soo taraa oo haddii loo dhisayo iyo haddii wax lagu darayaba waxaanu leenahay idinkuna soo caawiya maanta halkan waxaan ku qabaynaa shir jirayd oo ah inaanu islaan masaakiina oo degmada Celifin ah oo dadka danyarta ah ee biyaha iyadoo danyara biyaha kaaryoon ku soo dhaamin jirtay inaanu maanta haddaan nahay dawladda hoose ee degmada Celifin aanu ku wareejinayno nusbaloodka dhulka ah waxaan u jeedinaa bulshada islaamka ee degmada Celifin ku nool inay ka qayb qaataan siday ula dhisi lahaayeen hablaha u kacay hawsheeda ku jira qof walbaaba wuxuu awooday inuu ka qayb qaato kii wastaad ee bilaash ugu dhisaya kii kuuliye bilaash ugu dhisaya dhammaan bulshada waxaan leenahay ha laga qayb qaato sidoo kale waxaa si rasmi ah dhulkan ula wareegay hablo muxsiniin oo ay soo wakiilatay hooyadan tabaalaysan codsiga aanu geynay iyo halkii ugu horeysay heleen oo ay maaragtay islaanta miskiinta ay ku caawiyeen ay markiiba bixiyeen aad baan uga mahad celinayaa shaqada daacadda ay bulshada u hayaan aad baan uga mahad celinayaa ilaahay idinka jasaaysiiyo awlaadiina iyo naftiina iyo adduunkiinaba ilaahay idin xiftiyo
halkii ugu wanaagsaneed baa qabateen halkii wanaagsaneed baa qaadeen kaba darane suuligiina way ballan qaadeen jasaakallahu khayr baan leeyahay idinka abaalmariyo waa miskiinad iyada cunaha fiix baa kaga taala say waxa uu qaadaysay midna u xambaaraysay midna ay kaaryoonka ugu riixaysay biyaha wiil iyo gabadh agoonana way haysataa jasaakallahu baan leeyahay waliba inan kale agoona marka ilaahay idinka abaalmariyo hawsha aad qabateen ee daacadnimadu ku jirto aad baan idinkaga mahad celinaynaa ixtiraamka wanaagsan ee aad dadkiina u haysaan aad baan idinku mahad celinaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka idin saaraan idin leeyahay yoom laa yanfacu maalan walaa banuun maalin maaragtaan maalkii adduunyada waxba taraynin waayo waxaynu maanta halkan u taagannahay gabadh miskiinada oo walaasheena sidaynu dhibkeeda ula qaybsanno ayaynu qoraxdan u taagannahay idinkoo maamulkiia sidaa noo adeecdeen noo ajiibteen ugu degdegteen hawshaa ilaahay idinka abaalmariyo sida walaashii horeba sheegeen intaad ugu sii daraysaan oo kale ilaahay subxaana wa tacaala sidaa fiican ee maaragtay aad sharafta leh ee aad noo ajiibteen muxsiniintana waxaan leeyahay iyagana kuwa goobjooga iyo kuwa kusoo darsadayba ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro dhammaanteena ilaahay subxaana wa tacaala haynaga abaalmariyo iyadana ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay ha u barakeeyo meesheeda aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeynaya uga mahad celinayaa maamulka sida noo ajiibay ee sida fiican ugu shaqaynaya degmada iyo maaragtay shaqadoodaba u wata walaalaha guud ee muxsiniinta waxaan leeyahay maaragtay ka qayb qaata waa maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Ceelaf Weyn